iyadoo maalintii shalay ahayd uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu eedeymo culus u soo jeediyay xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo uu sheegay inay tacaddi iyo cagajuglayn u geysteen deeqa weydaar oo dhawaan sheegtay inay ku biiri doonto xisbiga Waddani. Cabdirisaaq Maxamuud Jaamac Ashkato oo kamid ah garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ayaa waxa uu mar uu TV-ga caalamiga ee bulsho wareysi gaar ah ku siinayay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu ganafka ku dhuftay hadalkaasi ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga Waddani. shalay waxaan maqlay gudoomiyaha xisbiga Waddani baa wuxuu sheegay waxyaabo wiilaya caburin iyo xorriyadul qowl iyo waxba kulmiye uu ku dhaqaaqay xisbiga Waddani waa xisbiga ugu guul darrada yar Soomaaliland waa xisbi guul darro u bartay waa xisbiga aad ogtahay 80 haldhibaan maamul kari waayay labada ku xigeen hoosteena fariista waa xisbiga wuxuu dhigay waa xisbigaas dadweynaha Soomaaliland waxaan uga digayaa in mataqaan Cabdiraxmaan Bool saacado uu nagu qanciyo oo aynu kula wadaagno fikirkiisa waynu kula wadaagno hamigiisa mustaqbal iyo futures inuu noqdo mataqaan madaxda bari inuu soo bandhigin wuxuu noo soo bandhigay fikir qabyaaladaysan wuxuu noo soo bandhigay wadaagtiino wixii ka hadlayay مسؤولية حسب الوطني ما عندك عذر ولا سبربراء رير باين تقول تم يصدق ميرنا وح كوهالية وحلو بهاي وح ومدة تكون السيد وحلو بهاي وح مدة سنس أما واحد تستد أو مدة كوكان هذا أو مدة أي كارو ما يسطو عبد الرحمن ما هيو وحنا مثلا هاي الحسب الوطني geesta kale Cabdirisaaq Maxamuud Jaamac Ashkato waan wax ka weydiinay sida uu arko saldhigga military ee dawladda Imaaraadku ka samaysanayso magaalada Berbera ayaa waxa uu yiri maalgelinta caalamiga waxa kamid ah in dalalku dalka hormariyo maal gasto waxna misanahay in wax aan ugu jiran jirin waxna misanahay Djibouti oo aad ogtahay يعني صدح سليق ملتريا كفران كان واحد يا مجو سليق ملتريا إماراتك بربرا وكفران طبعا وصودا وينيا وعبد السلام أحمد عود عبد جرماني بولشة TV هرقيسة.